calanka.com. بر aan ka faa'iidi doono macluumaad iyo aqoon iyo ururka saxafiyiinta Jubbaland xaruntiisa magaalada Kismaayo. Your work will help ensure that these processes are inclusive. marka anigu war dheer oo istaagin duruus bacalna ma ihi hadda guud ahaan wasiir oo baaladii ahay shalay nin kala joogay anigu hadda 2 bilood aan joogaa waxa bari ku kala iman kara waxaan rabaa inaan tababarkii inuu idin furan yahay aan idin kugu dhawaaqo waa idin furan yahay tababarkii waa mahadsantihiin iyo runtii waxay noqonaysaa maaragtay fursad ay maaragtay saxafiyiinta reer Kismaayo ay ka faa'iideysan karaan isla mar ahaantaana ay wax badan ka baran karaan maadaama aysan tababarro noocaan hore loogu qaban jirin waxa uu kale maaragtay tababarkan uu bixinayaa fariin ah in maaragtay magaalada Kismaayo iyo maaragtay dawlad goboleedka Jubba maaragtay in tababarro noocaan oo kale lagu qaban karo hay'adaha caalamiga ah ay ku soo dhiiran karaan in maaragtay ay tababarro noocaan saxafiyiinta gudaha maaragtay dawlad goboleedka Jubba ay ugu qabtaan wadan kasta way ka jiraan qaar dawladda iska ayadoo waqtiga karaatan ugu soo daro course the rules maanta waxaan meeshaan ku imaanay seminar ay noo qabanaysay hay'adda qaramada midoobay ee UNSOM waxaana sidoo kale ka qayb qaatay nosage waxaan ka faa'iidnay seminarkan faa'iidooyin aad u badan halkaana lagama soo koobi karo aad ayaan u mahadsan yihiin dhammaan dadkii dardargelinaya kana soo shaqeeyay seminarka in lagu qabto magaalada Kismaayo runtii waa markii ugu horeysay oo tababar noocan oo kale lagu qabtay magaalada Kismaayo wariyaasha Kismaayana wax badan ay ka faa'iideen qodobada ku saabsan tababarkan ayaan dabcan isleeyahay wax badan ay ka faa'iidayaan wariyaasha haddii aan xuso hal iyo laba waxa kamid ah qodobada wariyaasha lagu siinayo trainingkan ama tababarkan maanta ka furmay magaalada Kismaayo qaabka wariyaha u difaaci karo amnigiisa iyo qaabka uu soo tabin karo wariyaha barnaamijka New Deal iyo siyaasadda oo kale calanka.com.